Diblomacy Media ayaa daawanaysan. Waa 16 bisha 10 Oktoobar 2025. Tan iyo bishii Sebteembar ee sanadkan, maraakiibta dagaal ee Mareykanka ee ku sii qulqulaya badda Caribbean-ka ee agagaarka xeebaha Venezuela waxay haatan bilaabeen inay beegsadaan doomo lagu sheegay inay yihiin kooxaha ka ganacsada daroogada una dhoofiya wadamada Mexico ilaa Mareykanka. Trump ayaa bartiisa gaarka ah ee Truth Social ku sheegay muuqaal doon ay burburiyeen ciidanka Mareykanka, wuxuuna bogaadiyey howlgalkaas oo ku sheegay inay ku beegsadeen kooxda la yiraahdo Trinity Arago oo lagu eedeeyay dhoofinta daroogada. Mareykankuna aaminsan yihiin inay yihiin koox argagixiso. Weerarkaas waxaa la xaqiijiyay 11 qof inay ku dhinteen. Dowladda Venezuela dhankeeda way cambaaraysay waxayna ku sheegtay inay tahay xadgudub iyo weerar qaawan oo Mareykanka uu ku qaaday madaxbannaanida dalkooda. Xaqiiqana aysan ahayn eedda darooga ka macaashka ee dowladda Mareykanka ku celcelisay. Dhacdo kale oo xusid mudan waa khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Venezuela uusan ka bilaaban malafka daroogada, balse uu yahay khilaaf soo jiitamayay tan iyo bilowgii qarnigii 21aad si gaar ah 15 sano ee ugu dambeeyay, kaas oo tabin gaarna aan kaga hadalnay. Nidaamka xukunka ee dalkaas, la dagaalanka daroogada iyo cunaqabateyn dhaqaale oo Mareykanka uu dul saaray Venezuela ayaa hulcayay, isla markaana dab ka sii dhex kiciyay ololaha labada dhinac. Wuxuu gaaray heer Mareykanka uu dul saaro madaxa Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha Venezuela lacag gaaraysa $50 milyan si gacanta loogu soo dhigo. Warbixinta waxaan ku eegaynaa asalka khilaafka, hirarka uu soo maray iyo suurtagalnimada in duulaan military Mareykanka uu ku qaado Venezuela si uu xilka uga tuuro madaxweynaha dalkaasi uusan aqoonsanayn ee Nicolas Maduro. 26 sano ka hor sidee ayuu ahaa xaalka? Venezuela waa mid ka mid ah dowladaha dhaca Ameerikada Koonfureed, kuna fadhida masaafo dhan ilaa iyo 916,000 oo kiiloomitir isku wareeg. Dhanka waqooyi waxaa ka xiga badda Caribbean-ka. Brazil iyo Colombia ayaana daris kala ah dhinacyada koonfurta iyo galbeedka. Bulsho ahaan waxaa ku nool 28 milyan oo qof. Waa dowlad qani ku ah ilaa iyo hadda waxyaabaha dabiiciga ah oo ugu horeeya shidaalka. Waxay ka mid tahay dowladihii aasaasay ururka shidaal dhoofiyaasha ee OPEC oo ay ku mideysan yihiin dowladaha shidaalka dhoofiya. 1970-aadkiina waxay si maalinle ah u dhoofin jirtay 4 milyan oo fuusto oo shidaal ah, waxayna la gaar tahay ku dhowaad ilaa iyo 17% kaydka shidaalka ee dunida inta la baaray ee la ogaaday. Hugo Chavez, madaxweynihii soo xukumay Venezuela intii u dhaxaysay 1999 ilaa iyo 13, ahaana nin aaminsan aragti liddi ku ah nidaamka Mareykanka. Waxa uu la dhacsanaa dhankaas iyo shuuciyadda Ruushka. Wuxuu dagaal afeed iyo siyaasadeed balla galay madaxdii Mareykanka ee isku soo gaareen madaxweynkiisa, oo xiriir dhow la yeeshayna dowladihii ka soo horjeeday hab siyaasadeedka Mareykanka oo Ruushka uu ugu horeeyo. Waxa uu tagay magaalada Baghdad ee caasimadda Ciraaq sanadkii 2000, xilligaas oo uu ka talinayay madaxweyne Saddam Hussein. Wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee taga Baghdad laga soo bilaabo 90 ilaa 2000, ahaydna xilli uu go'doon siyaasadeed ku jiray Saddam sabab la xiriirta khilaafkii kala dhexeeyay Mareykanka iyo xulufadiisa Carbeed. Xilli uu jiro khilaafkaas siyaasadeed ee ka dhashay kala aragti duwanaanta la xiriirta nidaam siyaasadeedka hogaamiyaasha dalalkan, waxaa gudaha Venezuela ka bilowday kooxo abaabulan oo rabshad ka geysta gudaha xabsiyada dalkaas, iyagoo awood sheeganaya in ay gacanta ku dhigi doonaan xabsiyada. Qalaalaasooyin galaaftay nolosha ku dhowaad 600,000 oo qof dad ku dhow ayaa sidoo kale dhacay, oo barakac, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Dowladdii uu hogaaminayay Chavez oo la daaladhacaysa xakamaynta rabshadaha waxay si kedis ah ula kulantay sanadkii 2002 afgembi u muuqday inuu guuleystay ka hor inta aysan soo rogaal celinin ciidan daacad u ah oo ku guuleystay in dib ay xilka ugu soo celiyaan madaxweynihii la afgembiyey. Chavez waxa uu afgembigan ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay ka dambeysay. Wuxuu sheegay inay doonayaan in ay xilka keensadaan kooxo mucaarad ah oo xiriir dhow la lahaa dhanka sirdoonka Mareykanka ee CIA-da, laakiin aqalka cad xilligaas way beeniyeen eedaas waxayna ku sheegeen mid been abuur ah. Khilaafka Chavez iyo Mareykanka halkaas kuma ekaan ee wuxuu galay marxalad adag kadib markii madaxweynaha Venezuela uu joojiyay wada shaqayntii kala dhaxaysay hay'adaha la dagaalanka daroogada ee Mareykanka, wuxuuna ku eedeeyay inay xubnaha hay'addan yihiin basaasiin huban shaatiga darooga la dagaalanka. Dhabtuse ay tahay inay ka shaqaynayaan ficilo qarannimada Venezuela dhaawici kara.
waxaa dhacay tiro wadahadal oo aan guulaysan oo labada dhinac ay ku doonayeen inay kaga heshiiyaan khilaafka dhexdooda. wixii ka dambeeyay 2006 ilaa hadda ma jirto wada shaqayn iyo wadahadal u dhaxaysa Mareykanka iyo Venezuela oo ku saabsan dhanka la dagaalanka daroogada. Mareykanka ayana dhankiisa ku eedeeyay madaxda Venezuela inay ka ganacsadaan daroogada, sidoo kale inay xiriir leeyihiin Xisbullah iyo kooxo kale oo Mareykanka argagixiso oo aqoonsan yahay. waa hay'adaha yaala dhankaasi aqalka cad. soo bixidii Nicolas Maduro waa sheeko kale. xilli uu weli xun yahay xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Venezuela, xukunkana uu joogo madaxweyne Chavez, waxaa si tartiib ah u soo muuqanaya Maduro oo ah madaxweynaha iminka. wuxuu ka soo galay siyaasadda albaab baarlamaan, wuxuu noqday xubin gole intii u dhaxaysay 98 ilaa 2006. kadibna wasiirka arrimaha dibadda ayuu 7 sano oo ku sineed 2012 hayay. waxaana xigtay in sanadkaas uu qaatay doorasho madaxweyne oo mar kale ku guuleystay Chavez, kadibna uu madaxweyne ku-xigeen u doortay Nicolas Maduro sababo la xiriira kalsoonidii uu ku qabay fikirkiisa siyaasadeed iyo inuu yahay nin aaminsan aragtiyaha ka soo horjeeda Mareykanka iyo xulufadiisa. sanad kadib isla jeerkaas waxaa si kadis ah u geeriyooday madaxweynihii waddankaas, waxaana la qabtay doorasho madaxweyne oo codad aan badnayn uu ku guuleystay Nicolas Maduro hadda xilka haya ee is hayaan Donald Trump. Nicolas Maduro iyo Mareykanku waa dhacdo gaar ah oo ka sheekeynteedu waqti dheer qaadanayso. waxa uu yimid xilka madaxtinimada Venezuela xilli uu aad u xumaa khilaafka u dhaxeeya dalkiisa iyo Mareykanka. dhaqaalaha waddankiisuna uu ahaa mid ku sii socda burbur iyo hoos u dhac dakhli oo faraba'an hoos u gelinaya. hoos u dhacii ku yimid qiimaha shidaalka ee dunida 2014 wuxuu ka batay xaddiga shidaal ee suuqa la keenay xaddigii loo baahnaa. wuxuu saameyn toban ku yeeshay dalalkii ku tirsanaa dhoofinta shidaalka oo ay Venezuela ugu horeyso. wuxuu noqday dharbaaxadii ugu adkeyd ee la kulmo dhaqaalaha Venezuela. 70% oo ahaa ku tirsanaanta shidaalka ilaha dakhli ee dowladdu waxay noqdeen kuwa si xoogan u burburay. intaas kuma ekaane, burburka dhaqaale ee Venezuela waxaa sii kordhayay cunaqabateynta Mareykanka uu dul saaray sabab la xiriirta khilaafka siyaasadeed ee kala dhaxeeya labada dhinac. 2019 Mareykanka gebi ahaan wuxuu joojiyay shidaalkii uu ka iibsin jiray Venezuela, kaas oo gaarayay 2700 oo fuusto maalinkii, taas oo dhabarjab kale oo dhaqaale ku noqotay dhanka dhaqaalihii sii hoobanayay ee Venezuela. xukuumadda uu hogaamiyey Maduro ayaa eedda dhaqaale burburkeeda dusha u saartay Mareykanka. waxay ku tilmaamtay inuu yahay dagaal dhaqaale oo Washington ku qaaday dalkeeda, wuxuuna qaaday tallaabooyin kala duwan oo ku badbaadinaya inta ka hartay dhaqaalihii dalka. wuxuu ballan qaaday dib u qaabeen inuu ku sameyn doono habka deyn bixinta iyo sicid goynta lacagta, balse intaasi oo dhan waxba kama ceemin dhaqaalihii sii hoobanayay. muwaadiniinta Venezuela ayaana dareemay culays dhaqaale oo aysan arag weligooda. heerka faqriguna wuxuu gaaray 83%. waxaa gabaabsi noqday badeecadihii aasaasiga ah ee cunnadii iyo daawadii ugu horeeyaan. Mareykankuna wuxuu sii waday cunaqabateynadiisii tarabeelka ee Venezuela uu hubinayay. wuxuu xanibay hanti bilaayin dollar oo ay lahayd hay'adaha dowladda Venezuela, gaar ahaan bangiga dhexe iyo shirkadaha shidaal ee dalkaas. waxaa dalkaasi ka qaxay intii awood u lahayd inay qaxdo, waxayna dantu biday inay qaxooti ku noqdaan dalalka jaarka. Colombia oo daris yihiin ayaa ah dowladda ugu badan ee martigelisay qaxootiga ka qaxaya dhaqaale burburka ay sababtay cunaqabateynta Mareykanka ee Venezuela. ku dhawaad 7 milyan oo qof ayaa ka barakacay dalka Venezuela waxay ka dambeeyay 2022. Mareykanka oo kaliya waxaa ku nool dad ka badan 1 milyan oo qof oo shacab qaxooti ah oo u dhashay Venezuela, badankoodna aan haysan wax sharciyad ah. sanadkii 2019 waxaa doorasho madaxtinimo oo ka dhacday Venezuela ay guddiga doorashada ku dhawaaqeen inuu ku guuleystay Nicolas Maduro mar kale madaxtinimada. Mareykanka, Canada iyo inta badan wadamada Yurub ayaa qaadacay natiijada doorashada. waxay ku tilmaameen inay tahay doorasho aan daahfurnayn, waxayna ugu baaqeen Maduro inuu xilka wareejiyo oo baneeyo. Mareykankana wuxuu sii qaaday tallaabooyin kale oo cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale ku saarayo dalkaasi Maduro iyo xukunkiisa. ilaa madaxiisa la duldhigay lacag gaaraysa malaayiin dollar oo la siinayo qofkii keena xog ka caawinaysa Mareykanka in la soo qabto Nicolas Maduro. madaxweyne ilaa dambiile la baadigoobaya ayay Mareykanka isla mareen. Nicolas Maduro oo dhankiisa aanu u joojinin caqabad kasta oo loo dhigay si uu ugu soo dabacoon aqbalo doonista Mareykanka. Trump oo hadda ah ajandihiisa koowaad arrinta la xiriirta muhaajiriinta, waxa uu doonayaa inuu si xoogan ugu ballan qaadayna dhanka Nicolas Maduro inuu dib u soo celin doono xiriirka haddii uu aqbalo dib u soo celinta qaxooti kasta oo cariga Mareykanka sifa aan sharci ahayn ku jooga oo la geeyo Venezuela.
halkaas ayuu marayaa. Faarax Cabdiqaadir ayaa warbixinta diyaariyey, Diblomaasi Media.